بسم الله الرحمن الرحيم meeshan waxaan ku haysanaa number kala duwan waxaan rabnaa inaan isku geeno haddaba meeshan laba culeys amba laba caqabadood ayaa jiro labas caqabadood rabaa marka inaan meesha aan ka leexiyay aan numberada isku geeno waa midka koowaad ee horta excelka uma aqoonsana numbero sababtoo numberada yaaleen dhinaca midigta ay ku dhagilayeen laakiin hadda waxay ku dhagayeen dhinaca bidixda taas waa mid teeda kale waxa u dhaxeeya numberada koomo oo 12 kooma 4 kooma 5 marka waxaan u baahanaynaa horta inaan koomooyinkan aan ka saarno kadibna aan qoraalka ka soo wareejino numberaan ka dhigno kadibna isku geeno marka waxaan isticmaalaynaa laba step oo iskaga fudud marka waxaan ku qasbanahay inaan kala saarno waxaan isticmaalaynaa function loo yaqaano text split ayaa loo yaqaanaa functionkan waxboo kala daadiya amba waxboo kala saaraa waliba qoraalada kala saara sababtoo ah numberadan wali qoraal ayuu u aqoonsiyaa barnaamijka excelka marka wuxuu ku leeyahay soo qabo waxaan kala saarayno waxaan leenahay numberkaas rabnaa inaan kala saarno comma ayaan taabanaya delimiterkan waxa u dhaxeeyo muxuu yahay waxa u dhacayso comma marka double kala gudiisa ayaan ku qorayaa comma bisha ayaa xiraya enter ayaan taabanaya isla markiiba wuxuu sameeyay numberadii koomada u dhaxayso halka god ku yaalay ayuu soo daadiyay marka bacdama saddex number ay kaliin saddex god ay ku soo daadinaya hadii afar yihiin afar god shan number hadii shan god ku daadinaya waa soo qabanaya marka waa soo jiidaya ilaa hoos isla markiiba waa soo kala daadinay taas waa mid waay wali marka culays labadan haysto ah in numberadan oo san excelka wali u fahamsaneen inay number yihiin wixii ku dhagayeen wali dhinaca bidixda number markuu yahay dhinaca midigta ayuu ku soo dhagayaa marka laba jeer ayaan gujinayaa waxa rabnaa inaan numbera caadi aan ka dhigno si functionka sum uu isku geeyo hadii qoraal uu yahay functionka sum isku ma geey karo adiga any math operation isticmaashid wuxuu wareejinayaa number aniga waxaan iska isticmaali doonaa laba minus marka equation gadaasheeda functionka text split hortiisa ayaan laba minus dhigayaa inta wax ka dambeeyo internet ka taabano isla markiiba number ayuu isku bedelayaa 12 eval dhinaca bidixda ku dhaganaayo qoraal ayuu ahay laakiin hadda number ayuu soo noqday waan soo qabanayna oo soo jiideena kulligood number ay isku soo wareejiyeen marka waxaan noo fududaanaysaa in isku geynta aan sameeyno equation gadaasheeda imaanayna functionka waxa isticmaalaynaa sum kadibna bisha ayaan furaynaa intaan ayaan calooshiisa soo gelinaynaa bisha ayaan xiraynaa inta ayaan taabanaynaa isla markiiba numberadii wuu isku soo wada geeyay inta number markii la isku geeyo 20 waa inta number markii la isku geeyo 23 inta markii la isku geeyo 24 sidaas ayaan ku xalinay